maayarka caasimadda gobolka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda biyaha magaalada Gabiley oo muddooyinkii u dambeeyay yaraaday hadallo biyo yaraaneed ba magaalada ka soo yeedhiyay waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqno biyo yaraanta imika jirta waa biyo yaraantii awalba aynu naqaanay ila xiliyadan kaliisha dhacdo oo jirisay laakiin si cuslaatay oo waxa culeysiyeen uu yahay waayo isticmaalkii biyuhu halkii ay shalay taagnaayeen way ka badan yihiin waxaynu ka warqabnaa in soo guurto badan ay gobolkii dul joogto markaan u yimaado magaalada Gabiley dadweynaha reer Gabiley waxay ka cabaan ceelasha batoreed hadday tahay Gabiley hareeraheeda hadday tahay kala beed hareeraheeda hadday tahay bator lafteeda iyo hadday tahay boqor oo geed ballaariya Allah badan wixii ka soo sokeeyaba ay u soo arooraan ceelasha 8 sanadood ee u dambeeyay wax alla wax lagu kordhiyay ma jiraan isticmaalkiina maalin kasto Ilaahay cadceed soo saaro uu kordhiyo ama tirada dadka korodho ha noqdo ama tirada xoolaha korodho ha noqdo taasi baa jirta oo duruuftaas keentay dadii nagu soo qaxay oo xoolahoodii iyo iyagiiba culays nagu hayaan waa inaynu iyaga priority-ga siinaa duqa caasimadda gobolka Gabiley waxa uu dadweynaha reer Gabiley ugu bishaareeyay waxaanu maamul ahaan markii horeysay ka howlgalay inaan wax soo saarka kordhino waxaan halkan ka sheegayaa oo ugu bishaareynaya reer Gabiley in maanta aanu gacanta ku hayno ceel si degdega runtii wax looga qabanayo oo lagu kordhinayo wax ceelashii hore ay magaaladu ka cabi jirtay waxaan jeclahay inaan uga mahad celiyo xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo oo markii aanu u bandhignay duruufta jirta garowshiye ka bixisay jawaab degdegana na siisay aad baan ugu mahad celinayaa runtii xukuumadda dadweynahana waxaan u sheegayaa runtii inay ku bushaareystaan xaalkaasi degdeg baa loo bilaabayaa waa la qodayaa runtii waxaan rajaynaynaa inuu xaaladan adaga imika jirto wax ka tari doono gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxa uu ka jawaabay dad xasarad siyaasadeed ku dhaliilay biyaha magaalada Gabiley oo yaraaday kuwa sida qaldan u fikira waqtiyadan oo kale noloshu adag tahay wax tar mooyaane waxyeelo runtii ummadda waa laga dhowraa hadalna ha ahaatee biyaha iyo xaaladaha nolol ma aha wax siyaasad la gelin karo dadka siyaasadeynaya ee guriyaha dadka ku garaacaya ee soo baxayda ee cid gaar ah ku xumeeyeysle waanu uga diganaa waayo ummadan anaga ka masuula anaga ku fikirana in waxa weeye wax kasto dhaaf iyo baylaha jirta baanu daboolo oo u dhaaran oo 24 saac runtii u socona in dal isku kaashado wanaagun baa muhiim ah marka dadka siyaasad uga faa'iideysta isla waanu uga diganaa runtii waxaan leenahay Ilaahay ka yaaba nolosheena way adag tahay miyiga magaalada Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley